Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada channelkeena. Maanta waxaan ka hadlaynaa bararka indhaha hoostooda gala. Saaka kusoo kacay xalay intaan wax marsaday indhaha dhan hoostooda aad ii bararsan yihiin. Marka insha Allah aniga dhowr jeer igu dhacday waxyaabo badan ayaa xasaasiyo ku qabaa, laakiin dadka waxyaabo kala duwan ayaa ku keenay sida daalka oo kale, marka aad u daalan yihiin oo kale iyo marka fitamiinadooda aad u yar yihiin. Laakiin aniga haruuda xasaasiyo ku qabaa, marka insha Allah aniga saa ula tacaala idin tusaaya. Waxaa soo qaaday baradho ayaan soo jaray. Fiidiyo aanu dheeraadaan diiday oo la soo jartay. Marka labadaas baradho oo jeexada ah baan indhaha saaraya mid kasta ilbaan tartiib u saaraya. Baradhadan waa mid qabow fridge-kan ka soo baxshay, ma ahan baradho kulul. Waa waxaan ka soo baxshay qaboojiyaha. Haruudaas xalay waxaa ku darsaday bahal yar aan marsanaya marka indhaha iga gaartay waa oga aniga haruuda ma marsadaba. Marka insha Allah saas sameeyay ishaan saa u kor saaray. Labada xabo midba ilbaan saara. Hadda xogaa waxaan moodaa bararkii meesha uu ka dhacay, laakiin meesha maqaarka bararka uu ka baxaya wali soo yara burburan, laakiin bararkii oo aad u weyn wuu baxay. Marka haddana caleenta raba inaan tijaabiyo insha Allah caleenta oo shaaha cagaaran. Haddaad haysan caleenta caadiga ku samaysan kartaa oo shaaha Soomaaliga ku samaysano. Marka laba xabo ayaan biyo kulul ku shubaya, kadibna markaan ka soo dhex bixiyo fridge-kan gelinaya. Qaboojiya 10 daqiiqo camal. Shaaha baan ka samaysanaa marka ugu horeeyo. Marka insha Allah hadda shaaha markaan ka samaysto shaaha soo dhawna cabaar baadi Ilaahay calaf igu daro. Waxaan rabaa inaan labada caleen kala jeexo kadibna qaboojiya noo geliyo. Marmar way dhacdaa indhaha bararka, laakiin aniga inta badan waxa ugu keena waxaa waaye waxyaabo badan xasaasiyo ku ah oo haruuda ugu horeyso iska ilaaliyaaba. Marmar dhifa marka wax qasan lugaha ay marsan aan ku dardarsaa, laakiin wajigaygu uma dhaweeyo. Marka hadda waan caleentiina sidoo kale ayaa indhihi soo saaray bararka hadda wuu iga baxay alxamdulillah.